ciyaartooyada xulalka kubadda cagta kolayga orodada ayaa maanta si ramsiya uga ambabaxay gobolka Gabiley iyagoo sii jeeda caasimadda Hargeysa ee Britoola ka furmi doono tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland ee ka qabsoomaya caasimadda Hargeysa. Munaasabad maqaamkeeda si heesara loo soo agaasiyo lagu ambabixiyay ciyaartooyga xulalka gobolka Gabiley uga qayb gali doona wareegga gobolada Somaliland ee ka furmaya caasimadda Hargeysa ayaa waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay duqa degmada barasaabka gobolka xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abakar xogayaha komishanka ee degmada Gabiley iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo marti sharaf aad u tiro badan. waxaana halkaasi ugu horeynba ka hadlay duqa degmada Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo isagu la dardaarmay xulalka kala duwan ee tartanka uga qayb galaya gobolka Gabiley iyo waliba barasaabka gobolka Gabiley isaguna halkaasi ka hadlay. xafladani waa dardaaran iyo sagootin runtii maanta oo kale waxaynu halkan gobol ahaan iyo ciyaartooy ahaanba u diyaar garoobaynaa koobkii gobolada muddo diyaar garowgeenu soo socday oo tababar badan ku soo jirteen dahabshiil iyo tilisom waa shirkado waaweyn lacag badan bay gobolka ku qabaan runtii wax kasta oo uu soo bandhignay inta badan waxay dhahaa shaqaale ahaan baan isku noqonnaa fariinta waxaan u diranaa maamulayaasha sare waliba labada shirkadood marka de gobolku idin sugayaa waxa weeye maanta munaasabadeennu waxay daaran tahay inaynu sii sagootino xulalka gobolka Gabiley uga qayb gali doona tartanka ciyaaraha gobolada ee ka qabsoomi doona caasimadda waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. maantana waxaanu filaynaa inaynu ka soo qaadanno koobka 8 kooxood ee ku tartami doona garoonka Hargeysa Stadium ee la casriyeeyay ee maanta roog la dhigay oo ka duwan maalintii boardkan ku ciyaaraynay ee sanadkii hore kullay aad baa loo dardaarmay annaga iyo ciyaartooyga dardaaran iskuma gaarino istaag iyo socod iyo dhinac kastaba waanu ku dhamaystay dardaaranka qabto oo quruxda iyo direyska iyo hawlaha quruxda badan ee muuqdana isagu noo sameeyay aad baan u mahadcelinayaa. waxa kale oo aan halkan aad uga mahadcelinayaa shakhsi aad u qaaliya qof aad u qaaliya macallinkayga qaaliga Axmed Yaasiin Maxamed Xasan oo runtii maanta khamiista ka bilaabmasa koobka goboladu soo gabagabaysmaya ilaahay naga dhigo kuwii koobka soo qaaday xaflad labaad xaqan oo kale iskugu yimaada haddii ilaahay dhaahdo. guuleed cali ibraahim kacase warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley.